mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil ayaa saaka xilli hore waxa ay baaritaan dhinaca caafimaadka indhaha ah ay ka sameeyeen dugsiyada sare ee magaalada Berbera waxaanay baadheen ilaa 200 arday. Dr. Obsi oo ah dhakhtarka gaarka ah ee dhinaca indhaha ayaana sheegay in xanuuno aan ka jirin magaalooyinka kale xilligan ay ka jiraan xeebta magaalada Berbera oo dhinaca indhaha ah. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Assalamu alaykum dhamaan maxay shirkan cidda ka soo qayb gashay maamulka caafimaadka maamulka waxbarashada dugsiga sare ee Bursade waxaan maanta noo farxada inaan ka qayb galno shirkan muhiimka ah shirkan oo lagu wacyigelinayo dhamaan bulshada Berbera Saaxil waxa lagu wacyigelinayaa wax weeyaan xanuun gaar ah oo lagu arkay gobolkan intaan ka shaqeynayay ilaa 3 bilood oo dambeeyay aanu ka arkin cudur gaar ah ayaa lagu arkay maxay gobolkan kaas oo rabnay inaan dadka ku wacyigelino cudurkaas wuxuu abuuray wuxuu keenayaa inuu maxay sameeyo marka wuxuu sababayaa xanuunkan loo yaqaan fiqalaad keratoconus waxa uu bedelayaa muuqaalka isha iyo bedelayaa muuqaalka isha oo inta badan fiqalaad sida ah waxaad halkan ka muuqata nooca caadiga ah sida inay isha noqoto buudu qofkan waxaad ku arkaysaa isha buudeeda oo sida soo noqota taasoo soo noqonaysa madowga buuda isha iyo muuqaalka sida soo noqonaya taasina waxay keenaysaa aragtida xumaata iyo maxay burbur isha ku timaada hadduu qofku marmaro iyo saas ay soo noqotay hadduu isha soo marmaro bash bay noqonaysaa burburaysaaba kaasi waa ku badan yahay waxaan ogaanay inuu ku badan yahay gobolka saaxil kuma badna gobolada maxay Maroodijo iyo Awdal iyo Togdheer kuma laguma arag laakiin waa tiraad soo kordhaysa dadkaanu baarnay imika ilaa 200 qof aan baarnay iyo ardayda 208 qof aan ka baarnay ilaa 90 ma yeeshay xanuunkan. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil Caasho Aadan Yaayo ayaa iyana dhinaceeda ugu baaqday dadweynaha reer Berbera in ay baaritaanka caafimaadka ka qayb qaataan taasi oo ay sheegtay in xilligan kulaylaha ah ay jiraan cudurro badan oo dhinaca indhaha ah. Maaliland dhammaantood waxa weeyaan indhuhu waa qaali aragtidu waa qaali waxa la eegayaa ee maanta aragtidooda la eegayna waa u baxeeni waa dadkii bari dalka u soo korayay waa arin ah in dhammaan ubadka soo korayo oo dhan ay screening kan wada maraan waxaan maanta u mahadnaqayaa halkan uga mahadnaqayaa maamulka cusbitaalka agaasimaha cusbitaalka Caaisha waxa kale oo mahadnaqayaa Dr. Obsi waxa kale oo mahadnaqayaa maamule Maxamuud oo maamulaha cusbitaalka degmada inay maanta halkan noogu keeneen barnaamij caafimaad oo ku saabsan sidii loo baari lahaa aragtida ama xanuunada indhaha ku dhaca muddo 2 cisho bayna la shaqeynayeen 2 cisho anaguna halkan waa ku soo dhaweynay guud ahaanna waxa ka dhaxeeya bahda caafimaadka iyo bahda waxbarashada wada shaqeyn balaadan oo xanuunada oo dhan iyo kolba wixii caafimaad ee looga baahdo gobolka anaguna waan ugu fududeynaa iskuulka waxaan kala soo jeedinayaa in fariintaas uu gudbinayo Dr. Obsi sideeda loo qaato loo wacyi ummadana aynu wacyigelin intan ka balaaran loo sameeyo hadaynu nahay bulshada ku dhaqan degmada Berbera oo dhan runtiina xanuunkan xanuun alarmiya buu noqday rate ku sheegay wareeydaad aad u sareeyo doctorku marka intaas ku soo gabagabeynaya assalamu alaykum وياسين جامع علي هر وناغ نيوس مغالده بربرا